anigoo ah Axmed Maxamed Cali Siido wakiilka dadka baayaha gaarka qabo ee degmada Waaberi waxaan maanta aan joognaa kaalarka lagu codeynayo inay qaataan naafada ayaan diyaar u nahay mar walba waxaan diyaar u nahay inaan doorashada qof iyo cod aan ka qayb galno anigoo ah musharax golaha deegaanka degmada Waaberi waxaan diyaar u ahay inaan la codeeyo waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed ku nool degmada Waaberi inay ii codeeyaan oo maxaa lahaa i garab galaan anigoo ah qof baayaha gaarka qabo oo degan degmada Waaberi ku dhashay soo ciyaaray ku barbaaray ku caruur dhalay degan ilaa hadda aan deganahay meesha aan ku dhashay aan taaganahay waxaan rajeynayaa in doorashada ay u dhacdo si hufan oo cadaalad ah inaan u diyaar garowno haddaan nahay dadka naafada inaan codkeena ku celi baxno oo guddiga doorashooyinka iyo soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa sida mar walba ay noogu fududeeyaan dadka naafada xafiisyadooda ha ahaato markii kaarka codeynta la qaadanayo jaalaha iyo hadda eeli kaarka la qaadanayo marka kale waxaa la jeedaa intaas in ka fiican inaan helo ayagoo noo ballan qaaday in wakiil ka soo degmo oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir oo naafada ah inay xubin oo korjoogteynta ah oo ka mid noqdo aad iyo aad u soo dhaweynayna guddiga doorashooyinka inkastoo aan gaabis u dhacay laakiin gaabiska gadaal aan ka saxnay hadduu alla yiraahdo mid soo socota waxaan diyaar u nahay naafada guud ee gobolka Banaadir si hufan oo mug leh inaan ugu qayb galno wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh